السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وعصب يكو أولي لتشو وحاني لها سودي وهذا وامركل أي مقال عصب بلي صديقو تامركو وهذا نوتي مادي سبسكرايب نوصار نولاي قري أولا داني وشوكتاني نولاي قري سينا شير قري وفكرة ده هاس wargabdho cimaamada igu tuura haduu ilaa idmo channelka meel sare gaarsiiye biidnillaahil kariim sababtoo ah waxyaabo badan aan rabaa inaan soo geliyo 10,000 i gaarsiiya si share gareey channelka like sar like wax badan ay tireysaa ma fahamteen intaasna waa iska dhiirigelin cashirkan waa cashir muhiim ah hooyo walba oo haysato ilmo jiro 7 bilood ilaa 3 sano aad buu anfacayaa marka si wacan u dhageysta cashiradan maanta waxay diiradda noo saaran tahay xagga iyo qadada ma fahamteen qado waayo quraac ma aha laakiin waa qado cashana ma ahan 3 nooc oo qadada loo sameeyo oo fitamiin leh oo ilmaha uu kugu kobcayo waliba ma sha Allah tabaaraka raxmaan miisaanka la arag ah uu ku saarmaayo cunugaaga waxaad soo qaadanaysaa 2 qaado oo salbuka ah aad baad u dhaqaysaa nadiifaad ka dhigaysaa cunuga calooshiisa aad dhibaatada wasaqda aad uga ilaalisid kabacdi waad karinay digsiga dabka saaranay biyo waxa ku shubanay hal bakeeri waa isku uumiteen markuu jilaac noqdo bajaq uu noqdo ayaa rabnaa waxyaabo kale in lagu daro si wacan u dhageysta cashirada gabdha dhageysta cashirka fiidiyowga dhameysta fiidiyowga adinkoo dhameysan su'aalaha aad dadka soo weydiinaysaan iska dhaafa waayo fiidiyowga inaad dhameysatid dan badan kuugu jirto cashirka ku fahmay cunugaaga waxa u sameey kartaa waxyaabo badan oo caafimaad leh marka cashirkan aad daawatid waayo waa furiga koowaad oo cunugaaga noloshiisa wax aad ugu sameey lahayd inaa fahamteen rajeynaya digirtan salbuka lahaa waa digir cagaar weena yar tahay Soomaaliya marka joogtid 2 nooc oo kala baxda mid dalka ah iyo mid dibadda ah ma fahamteen mid dalka ah haday cusubta ma sha Allah waa organic kala arag ah dibadda daarabtidna waad isticmaali kartaa aad taas u qurux badan tahay mid dibadda laakiin mar walba mid dalka ayaa wax tar badan organic ah waxa ku darsanaysaa hal xabo oo toon ah toonaad ku darsanaysaa waa isku daboolay digsigaas iyo toonta iyo bakeeriga biyaha ahaa iyo 2 qaado oo qaadada cuntada lagu cuno ah markeeda oo digirta ku soo cabirta salbukada waxa waaye dabka meel yar u geesinay hooshaada iska qabsanay si ay isaga faqleynayso ee u bislaanayso marka dambe biyaha ayada dhameysanayda tartiib qasabada ugu daartid oo dabka xoog ah u siidid waxa ogaataa qaabka aan ka rabno inaysan kuugu soo bixeenin waxay kuugu soo bixi kartaa sidaas in aad sameeyid waxyaabaha aan ku sheegayo oo ah digsi mutala inaad ku shubatid iyo dabka hoos inaad u dhigatid oo dab aad u yar u saartid iyo in aad biyaha halbakeer aad ku shubtid sababtoo ah waxa rabnaa makiinad ma la marinayo qaada lagu burburinaa ama mid kale oo hoos ka dulduleesho wax lagu burburiyo ilmaha wax loogu burburiyo daqiiqada ka dhigays ma garateen marka cashirkan hooyo walba anfacaya haysato ilmo 7 bilood ilaa wixii ka sareeyo ayaantan qadada ma soo geliyo waa ka mashquulo waxyaabo kale tan soo geliyaa marka xasimeedaan cashiradan si fiican u dhageysta gabdho cashir muhiim ah waaye waxa sameeynaysan markuu yahay marka oo halkan uu ku marayo uu ku soo bislaana asagoo nadiif ku ah oo ku bisil oo iskiis u soo bislaado waa qabanay qaada dhex marsiinay waa budeynay marka waxaad ka dhigay daqiiq amal dhacaan yarna waa ku reebay ama qoyaan yar ma qalajineedid markii aad dabka soo dajinaysid ma qalajinaysid aad u burburinay marka burburisid waxa sameeynaysaa si fiican ayaad isku dhex gelinay ilaa ay ka dhigtid daqiiqda amal ama mushaari amal sababtoo ah ilmaha waxa loo baahan yahay carabkooda in wax macnaa qolof yar inuu ku harin ilmaha mar walba carabka way nacib yihiin hadii wax yar oo qolof ah uu ku haro carabkooda kabacdi waxa soo qaadanaysaa bariiska laasim inaad soo karisid waay gabaray bariiska soo karsa 2 qaado bariisa soo kari biyo ku soo kari hal bakeeri asagan sida amal u soo kari oo meel hoos u geey dabka markuu ku soo bislaado waxa isugu daraysaa bariiska 2 qaado ku bislaaday iyo salbukadii intaas markaa isku dartid bariiska iyo salbukadii oo labadaba soo kala bislaadeen waxa sameynay si fiican ah isugu qasay si wacan ayaad isugu qasay hadaa rabtidna waa isku darsan kartaa marka hore ma aragtaa waxa sameynay 2 qaado oo bariis ah
iyo 2 qaado oo ah salbuka isku dare hal xabo toona ku dar si fiican u dhaqe waxa ku shubanay 2 bakeeriyo biyo ah mac salaama saasa isugu budeynay ka bacdi cunuga qada uga dhiganay kii labaad waxaan guda gelinaa fiidiyoogii labaad waxaad soo qaadanay digsi waxaad ku darsanaysaa wax yar oo butter ama saliid ah waxa ku daray jab yar oo basala hal xabo yaanyo ah iyo xoogaa koosta ah aad soo dhaqdo qiyaas ah intaas marka isku dartid waxaad soo diyaarsanaysaa karooto iyo markaas qudaarta aad haysatid hadaa haysatid bardho kaleeto ama bataati oo kaleeto wixii markaas aa haysatid oo kale waa ku darsan kartaa intaas markaas soo dhaqdid waa ku daray si fiican aad isku dhex gelinaysaa waxaad soo qaadanaysaa 2 qaado bariis iyo 2 qaado oo misir ah si fiican u dhaqaysaa digsiga ku shubay waxa ku darsanaysaa 2 bakeeri oo biyo ah digsiga meesha hoose dabka u geeyni waa oo miteynaysaa wax yar oo cusba waa ku daray xawaajiga oo dhuudhuubka daartid waa ku darsay 4 xabo tastiga uu ku bedelaya maasha Allah wax ma laga qaban karo wax yar oo haaruuda xitaa ku darsay haaruuda cuntada kala arag wax ma laga qaban karo intaas isku u miteynaysaa markay bislaado marka uu bislaado waxaad sameynaysaa qaadanay waa marinaysaa si fiican ayaad isku dhex gelinaysaa cunugaaga waxaad uga dhigay haduu ilaahay idmo qado dhameystiran kala arag ah caafimaad leh lafaha cunuga aragga jirkiisa maqaarka meel walba u wanaagsan waayo waxa guda geleynaa fiidiyoogii saddexaad cashirkan saddexaad waa cashir basiid ah fudud kala arag ah laakiin waxtar badan ilmahaaga u leh miisaanka ka qayb qaata siyaadintiisa waxaad soo qaadanay 2 qaado oo bariis ah waad dhaqay digsiga dabka la saaranaysaa waxa ku darsanaysaa 1 bakeeri oo biyo ah meesha hoose u geynay markuu ku bislaado waxaad soo qaadanaysaa mashiinka wax lagu shiido ama qaado waa burburinay marka burburisid waxaad soo qaadanaysaa caanaha fadhiyo ama yoogad midka heli kartid waa ku darsanaysaa wax yar oo sokoraan waad ku daree marka ku dirtid intaas si fiican isku dhex gelin waa isku burburinay marka si fiican isku dhex galaan waxaad sameynay cunugaaga waxaad uga dhiganaysaa ama qado ama casariyo ma fahantiin gabdho mar walba fiidiyooyadan quruxda badan aan soo geliyaa waxa waay mar walba waxaan jeclahay hooyo walba inay farxad meeshan ay uga tagto ayadoo faraxsan kala arag ah inay ka tagto marka mar walba waxa isku daydeen cimaamada inay igu tuurtiin oo aad sameeyaan channelka meel kore inay gaarsiidin 10,000 waxa waay balanaan iga qaaday insha Allah markaan gaarno waxyaabo cajiib ah inaan soo gelinayo halkan ma fahamteen marka meesha ka kaca channelka macnaha dhaqaajiya waa fiirsaneedin badankiina waa ka tagaysin waraaleegta saaraya aniga waqti aan soo geliya waa ogtiin intaasna kaftan waay waani jeclaa wallahi alcadiim soo dhidhowaada waxaad tiin asxaab igu qaali ah kala arag ah madaxa korkiisa saaran markastana jecel inay wax iga faa'iidaan anna jecel mar walba in aan barto dad cusub dhaqamadooda iyo afkaartooda waxyaabahooda dhan aan macnaha aad u wanaajiyo aan dhageysto waxyaabaha markaas bulshada ay ka cabanayaan soo dhawaada hadde meesha waa meeshiina cashiradan si fiican u dhageysta si wacan u dhageysta gabdhaha badankooda su'aalo soo weydiiyaan waxa meeshaas iiga soo dhex baxo cashirka inaadan dhameysan fiidiyooga dhameysta meesha ugu dambeeyay geesta dhameysta cashirka wuxuu ku saabsan yahay